kabtan Thomas Sankara halyeygii Afrika ee ay dileen reer galbeedku iyagoo u adeegsaday saaxiibkiisii ugu dhawaa. kabtan Thomas Sankara wuxuu ahaa nin aad uga soo horjeeda gumeysiga dadban ee reer galbeedka. wuxuu ahaa nin aragti dheer oo isbedel doona aadna ugu weyn tahay aragtida mideynta qaaradda. muddo 4 sano kaliya oo xilka joogay wuxuu qabtay wax qabad aad u ballaaran oo madax 10 sano xukunka joogtay aanay qaban. wax qabadkiisii 4taasi sanana waa sababta inuu weli uga hadlayno maanta ku dhawaad 40 sano kadib geeridiisii. haddaba waa kuma Thomas Sankara, goorma ayuu xukunka qabtay, qaabkii ayay u dileen reer galbeedku, miyaad se ogtahay in ku dhawaad 40 sano kadib dilkiisii uu dalkiisii u soo baxay hogaamiye kale oo wata aragti la mid ah midii Thomas Sankara. haddaba saaxiibayaal ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta, balse intiinu yaako ee dalkii lagu magacaabi jiray Aberfolta xilligii gumeysigii Faransiiska. dalkaasi oo maanta loo yaqaano Burkina Faso, magacan cusub ee Burkina Fasona waxa uu bixiyay Thomas Sankara naftarkiisa. Thomas Sankara wuxuu ahaa ilmaha saddexaad ee 10 carruur oo ay waalidkiis dhaleen. aabihiis wuxuu ahaa askari booliis militariya oo ka tirsan ciidankii gumeysigii Faransiiska. Thomas iyo qoyskiisu waxay ku noolaayeen nolol ka sarreysa midda dadka kale. waxa ayna degenaayeen guri daar ah oo ku yaalay xaafad ay deganaayeen dadka u shaqeeya Faransiiska. wuxuu doortay inuu ku biiro ciidamada oo xilligaas dhalinyaradu aad u xiiseynayeen. wuxuuna ku biiray akadeemiyadii tababarka saraakiisha ee Kodogo oo ku taalay magaalada Wagadugu ee caasimadda dalkaas. tababarka saraakiisha cusub kaliya ma aanay bixin jirin tababarayaal ciidan ee sidoo kale waxaa qayb ka ahaa barofesoro uu ka mid yahay Professor Adama Toure. Professor Toure ayaa xilligaas saraakiisha cusub bari jiray taariikhda iyo juqraafiga. sidoo kalena xilligaas wuxuu ahaa agaasimaha tacliinta. sidoo kale Professor Toure wuxuu lahaa aragtiyo horusocod leh balse kama aanu sheegi jirin fagaarayaasha. balse qayb ka mid ah ardaydiisa kuwooda firfircoon oo uu ka mid yahay Thomas Sankara ayuu aragtiyihiisa kala munaaqashoon jiray meel ka baxsan fasalka. Professor Toure iyo ardaydiisu waxay ka munaaqashoon jireen aragtiyaha imperialismka iyo sidoo kale neo-colonialismka oo labadooduba ah gumeysi dadban oo dhaqaale iyo siyaasadeed. labadan eray ayaan u waayay erayo Soomaali oo ku habboon, haddii aad garanayso qaybta commentiga nagula wadaag. sidoo kale waxay ka munaaqashoon jireen hanti wadaagga, shuuciyadda, Soofiyeedka, kacdoomada dhaqaale ee Shiinaha iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada xorriyadoon ee ka socda qaaradda Afrika iyo mawduucyo kale oo aad u taali 10 jira ayaa tababaro iyo daraasaad ciidan oo dheeraad ah loogu diray jasiiradda Madagascar, gaar ahaanna kulliyad ciidan oo ku taalay magaalada Antsirabe. kulliyadaasi ayuuna ka qalin jabiyay sanadkii 1972 isaga oo noqday sarkaal darajo hoose ah. tababarkaasi uu soo qaar ku laabtay dalkiisii Aberfolta oo hadda loo yaqaano Burkina Faso. wuxuuna sanadkii 1974 ka dagaalamay xuduudda uu dalkiisa la leeyahay dalka Mali. dagaalkaasi ayuuna waagii dambe dhihi jiray wuxuu ahaa dagaal bila faa'iido ah oo aan loo baahnayn. Sankara wuxuu noqday mid caan ka ah caasimadda dalkaasi magaalada Wagadugu isaga oo ka tirsanaa koox garaacda gitaarka oo lagu magacaabi jiray Tout Ecop Jazz. sanadkii 1976 Sankara waxaa laga dhigay tababaro ciidan oo ka howlgala xaruntii tababarka ciidanka ee BO. koox saraakiil dhalinyaro ah oo ku jira Sankara ayaa asaasay urur qarsoodi oo lagu magacaabo Organisation Military Revolutionnaire OMR oo la macno ah ururka kacaanka militariga. Thomas Sankara darajo ahaan waa u dalacay wuxuuna gaaray darajada kabtan ama 3 digle. sanadkii 1981 dawladdii militariga ahayd ee dalkaas ee uu madaxweynaha ka ahaa Colonel Saye Zerbo ayaa Thomas Sankara u magacawday wasiirka warfaafinta. Sankara isla markiiba wuxuu noqday mid ka duwan wasiirada kale ee dawladda in saxaafaddu ay xogaha qarsoon baarto ama ay investigative journalism samayso. arrintaasina waxaa ka dhashay in saxaafaddu ay soo bandhigto fadeexado dawladeed. bishii afraad ee sanadkii 1982 ayuu Thomas Sankara iska casilay xilkaasi. kabtan Sankara wuxuu ku qanci waayay habmaamulka dawladda, wuxuuna u arkay inay tahay dawlad musuqmaasuqa oo aan waxba u qaban bulshada. wuxuuna yidhi oraahdan koor intaanu ka tegin xafiiska, waa ayaan daro inay jiraan kuwa caburinaya bulshada. 7 bishii 11 ee sanadkii 1982 dalkii Aberfolta waxaa ka dhacay afgembi ciidan, waxaana taladii dalkaasi la wareegay in lagu magacaabo Jean Baptista, kaasi oo bishii koowaad ee sanadkii 1983 ra'iisul wasaare u magacaabay kabtan Thomas Sankara. Sankara isla markiiba wuxuu ka soo horjeestay faragelinta iyo nidaamka gumeysiga dadban ee Faransiiska. balse muddo kooban isaga iyo qayb ka mid ah saaxiibadiisii ururkii qarsoodiga ahaa ee OMR. xariga kabtan Thomas Sankara waxaa keenay cadaadis ka imanayay gumeystihii Faransiiska. walow uu dalkaasi xilligaas xor ahaa oo xorriyad qaatay sanadkii 1960 balse weli waxa uu ku hoos jiray gumeysiga dadban ee Faransiiska. balse bishii 8aad isla sanadkaasi 1983 afgambiyo hogaaminay in lagu magacaabo Blaise Compaoré
oo ka mid ahaa ururkii OMR saaxiibna la ahaa kabtan Sankara ayaa xilka looga tuuray madaxweynihii dalkaas ee Jean Baptiste waxaana xabsiga laga soo saaray kabtan Thomas Sankara oo laga dhigay madaxweynaha dalkaas 4 bishii 8 ee sanadkii 1983 isaga oo da'diisu markaasi ahayd 33 sano jir. Sankara waxa uu noqday hogaamiye kacaan waxaana ka tusaale qaadan jiray raggii Kuubaanka ahaa ee Fidel Castro iyo Che Guevara iyo sidoo kale madaxweynihii Ghana ee Jerry Rawlings. Thomas Sankara waxa uu noqday mid aad iyo aad uga soo horjeeda nidaamka imperialismka ama gumaysiga dadban. Sanad guuridii koowaad ee xukunkiisa waxa uu bedelay magacii gumaysiga u bixiyay dalkiisa ee Upper Volta isagoo ku bedelay magaca Burkina Faso oo la macno ah dhulka dadkii wanaagsanaa ama dadkii daacadda ahaa. Labadan eray ee Burkina iyo Faso ayaa ka kala yimi laba luuqadood oo dalkaas looga hadlo. Erayga Burkina waa eray ka yimi luuqadda Moor macnaheeduna yahay wanaag ama daacad, halka erayga Faso uu ka yimi luuqadda Diola oo macnaheedu yahay dhul. Marka la isku darana waxay noqonayaan dhulka dadkii wanaagsanaa. Sankara wuxuu aad xoog u saaray sidii ay dadkiisa u heli lahaayeen guryo, cunto iyo sidoo kale goobo caafimaad oo ay aad baahi weyn ugu qabeen. Waxa uu bilaabay olole ballaaran oo dadka dalkaas looga talaalayo xanuunada sida xanuunka booliyada, jadeecada iyo xanuunka meningitis-ka. Muddo 2 sano gudaheed ayaana lagu talaalay dad gaaraya wax ka badan 2 milyan oo qof. Marka laga yimaado horumarinta adeegyada caafimaad, sidoo kale wuxuu aad xoog u saaray guriyeynta iyo sidii ay bulshadu guryo qiimo jaban u heli lahaayeen hoosna loogu dhigi lahaa xaafadaha isku raranta. Waxa uu sameeyay warshad weyn oo soo saarta bulukeeti qiimo jaban. Sidoo kale wuxuu aad xoog u saaray ka hortagga xaalufinta dhirta isagoo xoog saaray dib u kaymaynta dhulka. Waxa uu beeray muddadii uu xilka hayay wax ka badan 10 milyan oo geed. sidoo kale si la isugu xiro gobolada dalka aad iyo aad u ballaaran oo muddo aad iyo aad u kooban lagu gaaray. sidoo kale waxyaabihii uu aad xoog u saaray foolaadkana uu ahaa kacaankiisa waxa kamid ah beeraha isagoo oran jiray cidda wax ku siisa waa cidda ku maamusha. sidoo kalena waxa uu oran jiray consume what we produce, produce what we consume, oo la macno ah soo saara wixii aynu cuno lahayn sidoo kalena cuna wixii aynu soo saarnay, isagoo ula jeeda waa in laga maarmo cuntooyinka dibadda leynooga soo dhoofiyo. muddo aad u kooban gudaheedna Burkina Faso wuxuu ka yimid dal qaata kaalmo shisheeye wuxuuna noqday dal cunto ahaan isku filan. Sankara markii uu talada yimi dhammaan madaxda dawladdu waxay ku socon jireen baabuur Mercedes-a, balse Sankara arrintaas waa uu ka soo horjeestay dhammaan baabuurtii Mercedes-ka ahaydna waa uu xaraashay isagoo ku bedelay gaarigii ugu raqiisnaa xilligaas dalka yaalay waana gaarigan ku muuqda oo lagu magacaabo Renault. Sankara wuxuu ka hadli jiray shirarka ay isugu yimaadaan madaxda Afrika isagoo aad uga soo horjeeda siyaasadda reer galbeedka ee gumaysiga dadban ee ay ku hayaan dhaqaalaha iyo ganacsiga Afrika. Sankara wuxuu aad hoos ugu dhigay mushaarkiisa wuxuuna qaadan jiray $450 oo kaliya halka madaxda kale ee caalamka oo dhammi ay hantidii dawladooda jeebka ku shubtaan. Sankara waxa uu diiday inuu xafiiskiisa mukayf ama qaboojiye ku xirto isagoo uu yiri shacabkaygu ma awoodaan inay mukayf xirtaan. marka uu Sankara ka baxay madaxtooyada ma aanay galbin jirin 20 ama 30 gaari ee kaliya waxa uu ku bixi jiray gaarigiisa iyo 4 mooto oo kaliya. Sankara si ka duwan madaxda kale ee Afrika iyo kuwa caalamkaba waxa uu diiday in sawirkiisa lagu dhijiyo xafiisyada dawladda iyo goobaha kale ee bulshada isaga oo yiri anigu dadka ayaan ka mid ahay kacdoonka aan wadana waa mid aan dadka dartood u sameeynayo ee ma ahan mid aan aniga dartii u sameeynayo. in sawiradiisa darbiyada lagu dhijiyana waxa uu arkay weynayn iyo ka badbadin aan u qalmin ama waxa lagu magacaabo hero worshiping ama caabudidda haliyada oo wax in laga badbadiyo meel walba lagu dhijiyo taalooyin loo dhiso waxaas oo dhan waa uu ka soo horjeeday. 15 bishii tobnaad sanadkii 1987 Thomas Sankara iyo 12 qof oo kale oo kamid ahaa xubnihii dawladda oo ku shiriyay xarunta golaha kacaanka ayaa lagu dilay shirqool afgambi oo uu soo maleegay saaxiibkiisii ugu dhawaa ee Blaise Compaoré. koox ciidan oo ka amar qaata Blaise Compaoré ayaa gudaha u soo galay xarunta golaha kadibna xabad ku furay. howlgalkan shirqool waxaa soo maleegay Faransiiska